tartan ballaaran iyo hirdin dheer markii la isla soo galeen kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Camuud ay ugu dambeyntii ay ku xoog ronaatay kuliyadda injineerinka jaamacadda Camuud kuna guuleysatay tartanka koobka kubadda cagta jaamacadda Camuud ayaa waxa maanta munaasabad aad u ballaaran oo lagu xusayo guusha ay gaadhay kuliyadda injineerinka lagu qabtay hoolka weyn ee jaamacadda Camuud munaasabadaasi oo ahayd munaasabad si ballaaran loo soo agaasimay isla markaasna ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin heer qaran heer gobol iyo heer degmo waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirada wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan iyo sidoo kale isku duwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Awdal Samaroon Cabdillaahi Cilmi gudoomiyaha jaamacadda Camuud Barasfer Saybaan iyo sidoo kale macallimiinta iyo hormuudada kala duwan ee jaamacadda Camuud munaasabadaasi oo iyagu ahayd munaasabad ay ku dheehan tahay farax ayaa waxa ugu horeyntii halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay student affairs-ka oo isagu sheegay isla markaasina u mahad celiyay cid kastoo ka soo qayb qaadatay tartankaasi isagoona ku ammaanayay ardayda sida asluubta iyo walaaltinimada ku dheehan tahay ee tartanka ay ku soo dhameeyeen isla markaasina aan wax dhibaato ay ka soo gaarin tartankaasi sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Camuud Barasfer Deeriye oo isaguna tilmaamay waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha jaamacadda Camuud Barasfer Saybaan iyo sidoo kale isku duwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Awdal Samaroon Cabdillaahi Cilmi waxana ay tilmaameen oo hadii la duubi lahaa ay mudnayd oo lagu celin lahaa labada kooxood ayaa quruxdu soo baxay aniga sharaf weyn bay tahay maanta inaan halkan ka hadlo jaamacadda Camuud magaceedu dhinaca uu gaaray waxaan jecelahay annagu wasaarad ahaan haddana wakiilkii gobolka ah in jaamacaddu ay taageerto way taageertaa koob wada qabtaa laakiin inta inaan u joojin la weyneeyo xul loo sameeyo magaca jaamacadda geeya haddii marka hore waxbarasho walbu yaqaanay in ciyaaraha lagu qabto privilege uu leeyahay markaan argeysa iyo meelaha taga tarbiyaasha waa jaamacaddu waa soo day wariyada lagu horreysay weynaa deeqada tiro waa inuu shaqaalaha Soomaa oo tabaacdi ka muuqata ururnimo gabadha reerka ururada iyo wiilka reerka ururada waa hogaamiyaha laftooda hogaanimada tacliinta iyo da'yarteena waa inay laga muuqata marka waliba wasaaradda markaa wasiirka inta badan waxay tiraahdaa malaha diiriya hadda waxaan jiraa Cabdinaasir baa markaa Saciid Habanaan markaa furayay xaqii dabeecadda iyada tiraahdaa ardayda argeysa markay la hadlaysato dhaqanka iyo dabeecadda ardayda jaamacadda Camuud waxa uu yeelay weeyay oo meel walba example bay laga dhigtaa ugu dambeyntii waxa halkaasi soo afmeertay wasiirada wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan oo iyadu tilmaamtay runtii waxa weeyaan Camuud marka la imaado waxa dareemaa meel waxbarasho waxa weeyaan ardaydu waxa ay arday dhaqankoodu arday yani waxa weeyaan sidii jaamacadda ay jiray ee Camuud tahay mana qariyo meel walba oo ka sheega waxaan inta mahaddeeda leh ardayda iyo dadka tababaraya ardayda Camuud ka tilmaaman tahay ilaa sanaad baa lagu tegay qaar iskuulada ka dhigaya goodweyne meelo badan arday Camuud ka soo baxday oo macallimiina runtii muuqaal inuu qof aqoon leeyahay ayuu leeyahay idinka leeyahay waxaan ka rajaynayaa saas oo kale aad noqotaan waayo goob aqooneed goob wax kala yaalaan maaha goob siyaasadi taala maaha goob qabyaalad taala maaha waxaan filayaa ardaydiina inay ilaa qaar Soomaaliya ka yimid baa ku jiraan soo maaha marka waxa weeye waa goob kulmisay dhalinyaro aqoon raadinaysa isku soo wada xooriye munaasabadan oo iyadoo ahayd munaasabad aad u ballaaran ayaa waxa ugu dambeyntii lagu soo afmeeray jawaa'is iyo shahaadooyin la guddoonsiiyay ardaydii ku guuleysatay ardaydii kaalmaha mugale ka soo gashay tartankaasi sidoo kalena waxa koobkii la guddoonsiiyay kuliyadda injineerinka jaamacadda Camuud oo iyadoo haatan hantiday